هاماسيga ama halaaqada hadba sidaad u taqaan waafka oo aad kala furto furidaada xilligan sababada ayaa qaata hawo jaba qabashada dhigtana way fidaa indhuhuna way xirmaan taasi oo sababtay in ilmo indhaha ka timaado ma jirto shay ama ficil sameynayso si halaaqa kaaga timaado laakiin inta badan waxay timaadaa ka hor iyo kadib hurdada taasi oo calaamad muujinaysa daal sidoo kale hamaansiga waxa uu yimaadaa markuu qofku ku guda jiro salaada xilliga khushuucda salaadu tagto qalbigana uu baxo waxaana arintan dhaliyo shaydaanka waana xeelad kamid ah xeeladaha uu adeegsado sida salaada qofku uga mashquuliyo una dhaxgalo qofka ya Allah halaaqadu waxay kamid tahay nolol maalmeedkeena caadiga ah taasi oo ka dhigan inaadan u baahnayn inaad daalantahay si aad u hamaansato gamaayada ama lulmada ayaa keenta hamaansiga xad dhaafka ah caadiyan waxayna oranaa qofka hamaansada murda ku haysa maxad la halaaqoon inta badan qofka xilliga uu jiifan jiray waxa uu isku arkaa halaaqa badan taasi oo calaamad muujinaysa inay hurdo ku hayso halaaqadu waxay hoos u dhigtaa heerkulka maskaxda sidoo kale waxay naga caawisaa inaynu qaadano oxygen soo nodayno carbon dioxide dadka iyo xayawaanka way ka sameeyeen halaaqada waxaana la sheegaa in dadku ay ka waqti halaaqa dheer yihiin xayawaanka libaaxa shabeelka geela daanyeerka eyga iyo qaar kamid ah xamaaratada ayaa halaaqooda masaska ayaa kamid ah xamaaratada halaaqoota inta badan masaska waxay kala furaan afkooda si aad u weyn gaar ahaan xilliga uu gaajoon yahay waxuuna afkiisa u diyaariyaa inuu wax liqo dhaqaatiirta caafimaadka ayaa aaminsan in hamaansigu uu sare u qaado cadaadiska dhiigga garaaca wadnaha iyo qulqulka dhiigga qudhiisa hamaansiga waa la isku gudbiyaa inta badan wayna halaaqoona isla daqiiqada qof inoo dhow halaaqoodo inta badan arrintan waad aragtaa xilliyada salaada tukanayso waana mid kamid ah aaladaha uu adeegsado shaydaanka qofku hamaansiga keeni waayo waxa uu soo maraa dariskiisa halaaqooda haddii qof kamid ah kooxda ah wada jooga uu halaaqoodo qaar badan oo kamid ah kooxda ayaa iyakan halaaqoonaya aragti dhawaan la helay ayaa sheegaysa in maskaxdu qaadato hawo nadiif ah xilliga uu qofku halaaqoodo kana dhigaysa maskaxda mid degan taasi oo noqonaysa xilliyada ku haboon fikirka halaaqada cilcilisaan waa 6 ilbiriqsi ragga ayaana ka waqti halaaqa dheer dumarka inta lagu guda jiro 6 ilbiriqsi garaaca wadnaha waxa uu gaari karaa ilaa 30% hamaansiga sunnadu waa ay ka hadashay sidaan hore u soo sheegnay halaaqadu waxay ka ahaatay shaydaanka badana waxaad aragtaa xilliga salaada oo shaydaanku doonayo inuu ka mashquuliyo salaada si uu u kala dhaxgalo adiga iyo Allah nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yiri Allah waxa uu jecel yahay hindhisada waxaana neceb yahay halaaqada kolkii uu midkiin hindhiso Allah ku mahadiyo waxaana waajib ku ah qof kasta oo muslima ee maqla inuu yiraahdo yarxamakallah halaaqaduna shaydaanka ayay ka ahaatay ee isku celi midkiin intuu awoodo shaydaanka ayaa ku qosla markuu midkiin yiraahdo waxaana la doonayaa inaad isku celid inta isku celin karto haddii ay ka adkaato oo aad kari weydo afka gacanta saar sida sunnada ahna waxay nafari in haddii ay midig tahay aad calaacasha saarto haddii ay bidix tahana dhabarka gacanta afka saarto inta badan waxaad arki dadka oo gacanta afka saaraya iyadoo gacantu xiran tahay taasi sunnada kuma jirto sameeyna sida sunnadu qabto ogowna sunnadu had iyo jeer waxay nafari waa caafimaad sidoo kale halaaqadu waxay ku timaadaa marka aad daawanayso wax ku saabsan halaaqada imsa jeer baad halaaqoto inta daawanayso muuqaalkan hubaal ma yara waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan nagu reeb aragtidaada qaybta faalada wabillahi tawfiiq